السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa wararka shacabka YouTube kan waa Abduqaadir Xasan Aduuliya. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa sharciyada wadanka Jarmalka laga bixiyo magacyadooda ayaan halkan ka wadaagi doonaa. waa laga yaabaa inaad hore u daawatay muuqaalahan sharciyada iyo aan ku kala saarayo qaababkooda, laakiin maanta waxaan si gaar ah uga hadli doonaa magacyada sharciyada ay leeyihiin. magacyada aan sheegi doono haddii uu sharcigaagu u yahay iyo in kale ayaad kala ogaan doontaa. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee bartaan wararka shacabka YouTube aad soo booqato, waxaan ku leeyahay qaybta subscribe ka naga hilmaamin. marka ugu horeysa horta iska baro Aufenthaltstitel. dad badan waxaa laga yaabaa markay Aufenthaltstitel ay maqnaan oo kale inay uu ku soo dhacayo sharciyada Ausweisyada ama sharciyada baasaboorada ama waxyaabo noocaas. haddaba magacan Aufenthaltstitel-ka ah waxaad ogaataa in uu yahay magac guud oo ay wadaagaan dhammaan sharciyada wadankan bixiyo ama ogolaansho wadankan qofka haddii uu ku soo galo oo warqad la siiyo. adigu waxa kuugu soo koobaya waxay tahay Aufenthaltstitel waxa waaye waa dukumenti ama waa warqad cadeynaysa in aad wadankan ku joogtid si sharci ah, ha noqoto saacado, ha noqoto maalmo, ha noqoto bil, ha noqoto isbuuc, ha noqoto sanadyo. taas waa ila garateena u maleynaya. hadda kadib ha isku dhihin aniga waxaan haystaa Aufenthaltstitel ha dhihin. haddaba saas u ogow ilaan dukumenti walba ayaa la yiraahdaa Aufenthaltstitel. haddaba Aufenthaltstitel ayaan haystaa markaad dhahdo kale uma sharcigaaga u yahay oo kale midku ka yahay ayaa sheegaysaa. sharciyada yaryarka ah ee bilaha ama maalmaha ah sida warqadoo kale sida Ausweis oo kale waxa gudihiisa ku qoran Aufenthaltstitel ayaa ku qoran. marka magaciisa caadiga ee sharciga marka kala furtid magacaas ayaa ku qoran oo magaciisa la yiraahdaa. marka waa ma sharciga markii qofku asuul fafaaran oo kale ama qaxootinimada uu qofkan yimaado wadanka uu qaxootinimo codsado oo kale process-yadiisa inta u socdaan oo kale midka isku laabka sharciga isku laabka iyo warqadda iyo waxaas oo dhanba waxa la yiraahdaa Aufenthaltstitel. waxaan u gudbayaa waxay tahay sharciga ku xiga ee ama qaxootiga ah ama bini'aadanimada. tusaale kale Ausweiskaas qofka markii la siiyo Ausweiskaas magac ayaa la yiraahdaa. marka Ausweiskan markii lagu siiyo qof macnaha sharciyada dhalashada ama kan deganaanshada ama kuwa kale qaxootinimada badankood waxay leeyihiin waa Ausweiskaas. laakiin Ausweiskan markaan hadda Ausweiskan aan hadda ka hadlayo waa mid aanan dhalashana ahayn deganaanshana ahayn ee midka qaxootiga ama midka bini'aadanimada ah. Aufenthaltserlaubnis ayaa la yiraahdaa. Aufenthaltserlaubnis halkaan ayaa ka arkaysaa. marka haddaba sidaas ugu haddii aad sharciga ama bini'aadanimada haysatid 2 sano ah 1 sano ah 3 sano ah intuu rab ha ahaado ama midka qaxootiga aad haysatid Aufenthaltserlaubnis ayaa la yiraahdaa. midka deganaanshada ayaa ku soo haray asagana waxa la yiraahdaa Niederlassungserlaubnis ayaa la yiraahdaa. magacyada sharciyadu ku kala duwan yihiin. marka sidaas laftirka waa inaad ogaataa inaad deganaansho haysatid iyo inaad kii qaxootiga haysatid ama kii bini'aadanimada haysatid waxa ku kala ogaanaysaa. midka deganaanshada ah oo abadinka ah macnaha waxa ku qoran Niederlassungserlaubnis ayaa ku qoran. taas halkaas uga soo gudub waxa ku soo hartay midka dhalashada ayaa ku soo hartay oo midka dhalashada laftirkiisa Ausweiska uu wataa. midka citizenka asagana waxa ku qoran Aufenthaltsrecht Union ama Union Burga ku qoran. marka waa ina ogaataa waxa ku qoran Aufenthaltsrecht Union Burga ku qoran. marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin. marka Aufenthaltstitel waa magac guud oo ay wada wadaagaan sharci walba oo qofka la siiyo. marka ugu horeyso kor waxa ugu qoran Aufenthaltstitel. sharciyada laakiin gudahooda markii la galo ayay magacyadu kala duwan yihiin ilaa mid walba magac ayuu leeyahay. marka magacyada ay leeyihiin waa sidaas. marka annaga haddaan qaxootinahay kuwaas ayaanu quseeya. sharciyo kale oo kala duwan oo markaasi Yurub gudaheeda iyo way jiraan oo magacyo leh. sharciyo kale oo dadka la siiyo way jiraan, xataa kuwa deganaanshada dadka qaxootiga la siiyo oo deganaanshada abadinka ah dad la siiyo oo markaas Yurub gudaheeda ka yimid oo kale way jiraan, magac gaar ayay leeyihiin. marka annaga kuwa nuquseeya maadaama aan qaxootinahay ayaan si gaar ah uga hadlay. muuqaalkii aan kusoo koobayay sharciyada iyo magacyadu ay kala leeyihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. haddii aad tahay oo aad tahay dadka cusub bartida YouTube-ka
subscribe waa inoo muhiim intaa muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo